maanta haddii aad cabasho uun haddii aad had ijir la taagan tahay af ingiriisi ma garanay af ingiriisi ma garanay af ingiriisi dee weligaa af ingiriisi ma baranaysid marka waxay ku siin wixii kasta ee sanadan gudaheeda youtube-ka la geliyay salaamu calaykum waraxmatullah waxbarashadu waxay u baahan tahay in la barto sida wax loo barto waa hadal weyn baan u malaynayaa laakiin bal maxaad u fiirsa waxaan u jeedo maanta waxaa jira term ah ama hadal ah learn how to learn wax baro sida wax loo barto maalmo dhaweyd ayaa laba dhalinyar ah ayaa doodaysa aniguna waan ag joogay waxay ku doodayeen wuxuu ahaa Cristiano Ronaldo iyo Messi kani ayaa xariifsan kani ayaa lacag badan kani ayaa Ballon d'Or fara badan qaaday kani ayaa waxaas marka waxoogaa markaan maxaad u yar fiirsaday yaa waxaan ku yiri wariyada kale balbaan ku yiri markaasaan ku yiri ma waxaad leedihiin kaaba xariifsan oo kaaba xariifsan haaba yiraahdeen markaasaan ku yiri internetka ma isticmaashin ha youtube-ka ma isticmaashin ha de haddaba intaad doodaysiin maad internet ku qortiin keebaa lacag badan labadooda si dhib yar aad u heli lahaydeen keebaa labadooda xariifsan si dhib yar baad u heli lahaydeen keebaa xayeysiiska lacag fara badan ka hela waxaasi maanta wax lagu doodo ma aha dhalinyartii way is eegana way aamuseen waxay og yihiin oo kaliya maanta adduunka internetka ama youtube ama wuxuu doona ha ahaadee maanta waxay u qaadanayaan qofba meel buu ka qaatay qofba wax buu ka haystaa aragti gooniyu ka haystaa laakiin aragti kama haystaan ah in maanta youtube iyo internet iyo wax kasta laga heli karayo toddobaad hore waxaan ka sheekeeyay bahayd wax ku baro 7 cisho gudahood waxaad ku barataa wax yani wax aad rabtid wuxuu doona ahaadee maanta waxaan rabaa inaan ku tuso youtube-ka sida wax looga raadin karo kaba soo qaad maanta waxaad rabtaa aqoon ziyaada ama aqoon inaad baratid tacliin inaad baratid sida developer loo noqdo ama ganacsi ha noqoto ama xisaabiye ha noqoto ama xirfad jadiid ah maxaa yeelay technique jadiid ah wax jadiid ayaad rabtaa inaad baratid ama waxan aad ku shaqeysay ama ardayga aad ku tahay ayaad rabtaa inaad baratid dadka maanta waxayna ogeyn youtube-ka iyo google-ku waa sidii robot waa sidii machine-ka wuxuu leeyahay technique lagu baaro technique wax lagu raadiyo haddii aad waxaa garanayn waad ka waayaysaa maxaa yeelay waxaad rabtid wax fara badan oo kaba soo qaaday marka waxaan rabaa inaan raadiyo accounting xisaabiye youtube-ka markaad ku qortid accounting tutorial kelmadda tutorial waa kelmad badana u caan ah aqoonta la raadinayo wax kasta badana waxaad ku horeysiiso waxaad ka dambaysaa tutorial accounting tutorial website tutorial création de site web tutorial de création de site web يعني af ingiriisi ama faransiis ama af soomaali waxaa doonta ku raadi laakiin kelmadda tutorial waxa badana ay caan u tahay waxyaabooyinkii maxay ahayd internetka laga helo kadib marka aad ku qortid kelmadda youtube wuxuu leeyahay search filter halkaas sare ayaad ku raadin kartaa waxaan aad raadinaysid waa inuu noqdo wax jadiid ah marka seed u ogaan kartaa wax jadiid inuu yahay waxaad u ogaan kartaa markaad halkaa dush sare aad taabatid wuxuu ku tusayaa this year ama sanadan gudaheeda taabo marka waxay ku siin wixii kasta ee sanadan gudaheeda youtube-ka la geliyay kadib markaad sanadan gudaheeda markaad tiraadid waxaa kuu soo bixi haddana waxyaabooyin fara badan waxaad haddana sii doorataa meelsha ay ku qoran tahay videogan aan raadinayaa waa inuu ka bato 20 midh waa 20 midh inuu ka bato waxay ku fiican tahay waxaad arki videoyaal saacad ah videoyaal 2 saaco ah videoyaal 3 saac qaar 9 saac qaar 15 saac videogu markastuu badan yahay aqoonta aad ka helasay way badan tahay videogu markastuu yar yahayna haddii waxaan as a general looga hadlayn oo detail la sii galayo 20 minute inuu ka bato weeyaan marka
adiguna waxaad raadinaysaa waa aqoon xisaab baad raadinaysaa ama logo saa loo sameeyaad raadinaysaa ama ganacsi baad raadinaysaa sa looga hadlo ama marketing baad raadinaysaa ama xayso xabad raadinaysaa had iyo jeer waa inaad raadsatid wax saacad iyo 2 saac iyo wax ka badan taana hadhow toole 3 saac iyo 4 saac youtube-kuna wuxuu leeyahay markaad wixii aad daawatid marka dambeed ku soo noqotid wuxuu maxay kaaga bilaabayaa halkii markii hore aad ku joogsatid ayuu kaaga bilaabaya imika video 10 saacadood baad furtay markaad furtay waad xidhay waad ka tagtay haddaad doontid waraaqad meel iskaga qoro si aad marka dambe aad soo noqoto saad waad xaq u joogtay haddii kale youtube-ka laftiisa ayaa intii aad ku joogtid in yaroo dhowr minute ayuu ka dambaysiin laakiin wuxuu ku tusi halkii markii hore aad ku joogsatay ayuu ku tusi kadib halkii baad ka sii wadi dhalinyar baa mar i weydiisay waxaan ka soo hadlay xisaabta accountability ama accounting inaan video dhowr xabadooda series aan helay markaasay qaarkood la halkeed ka heshay imakan channelkii ma xasanayo waxyaabooyinkan aan ka bar channelkii ma xasanayo laakiin kuwii markii hore waxaa imaka jira kuwa ka dambeeyay oo ka jiisa 3 sano 4 sano 5 sano 6 sano aan waxaan ka hadlay marka kuwan imaka jidid ayaa ka wanaagsan waayo wax markastuu jidid yahay waa aqoon jidid kala baxa soo kordhaysa imaka dad baa rabaa inay logiciel ama software inay rabaan walaalahayga dhibsanaya kelmadaha Faransiiska had iyo jeer markaan xabad kelmad Faransiis marka iga siibato waxaan isku dayaa inaan Ingiriisi ku hadlo ama inaan Soomaali ku hadlo marka raali ahaada kelmaday marka sage oo kale waa sage accounting waa barnaamij imaka ka ayad rabtaa inaad dhigatid hadhowna CV-gaaga waxaad ku biirsan kartaa inaad sage logicielka ama software-ka sage inaad baratid haddaad imaka sage tutorial markaad ku qortid waad ka wala helaysaa maxay barnaamijka sage oo dhan siduu yahay sidaan ku sheegna hadeerto ole waxaad raadisaa wuxuu inuu 2 saac iyo 3 saac iyo 4 saac inuu ka badan yahay had iyo jeer youtube-ka waa 2 qaybood dad waxay u galaan waa entertainment waa hees waa showwaayad waa aynkaas dadka waxay ka helaan wax yar video yar marka adigu laba noqo dadka wax yar ka helaan waxay ka dhigan tahay waa dadka entertainment ugu soo galay youtube laakiin dadka aqoon iyo ganacsi iyo maxay waxbarasho soo galaya kuwa ay ma raadiyaan maxay video ka yar saacad marka ha raadin video ka yar saacad iyo 2 saacadood hadda adigu leedid saacad ma hayana taayada ku taawalkayo had iyo jeer waxaan isla talnaa waxa weeyaan waa sideen nolosheen u bedelnaa waa sideen aqoon wanaagsan u yeelanaa waa sideen nolosheenna maxay aan imaka raali ka ahayn dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan iyo wax kasta aan raali ka ahayn si baan u bedelnaa takriyaati wax lagu bedelanayaa waxa weeyaan waa aqoon oo diirata wax kasta wad bedeli kartaa noloshaada nolol ka wanaagsan waad heli kartaa situationka imaka aad ku jirtid tu ka fiican waa heli kartaa waa aqoontaana waxa weeyaan mid waxay taalaa internetka mid kale iskuuliyo waxba loo galaa iskuulidii wax loo galo waa tagi kartaa haddii aad raadinaysid inkastoo ay jiraan iskuulo lacag aad ka bixinaysid laakiin aqoontan ay ku siinayaan ay ka wanaagsan tahay aqoonta internet ku jira taana waa inaad iskaga fiirsid taa waa ta youtube-ka mid kale waxaa jirta website laga heli karo ku ingiriisiya iyo ka faransiiska ba labadu way jiraan adiga ay ku xiran tahay sidaad u raadinaysid adiga ay ku xiran tahay waqtiga aad dhiganaysid xitaa qaar baa jira videoyaal baa jira aan ku arkay 20 saacadood yani waa nicmad ka dambeyn 20 saacadood oo bilaash oo internetka aad helaysid Faransiis iyo Ingiriisi ba labada way leeyihiin kuwana waan ku tusi oo website-kooga waan ku dhigi meesha si aad u aragtid iyo si aad wax uga iyo sida wax maxay aad uga faa'iidaysid marka waxaan ku rajeynayaa inaad intaas oo dhan aad gashid waqtigaagana inaad nidaamisid markaad imakayshid maxay video 10 saacadood 10 saac maalinkaad kuma dhameyn kartid waayo waa technical hadduu doono mid kale ayaduna jirta dad baa yiraahdaa anigu af Ingiriisiga ma garanayo anigu af maxay Faransiiska ma garanayo waxaan aad raadinaysid hadduu yahay wax technical ah yani ka soo qaadimaka logo design ama website creation ama waxyaabooyinka caynkaaya site web ka saa loo sameeyo logo saa loo sameeyo photoshop xitaa imika photoshop waxa weeyaan waa meelooyin la dooranayo
afku doonaa ku hadlo wallahi waxaan xasuusanayaa application framework la yiraahdo yi waa PHP framework weeyaan yida anigu marka aan baranayay waxaan ka baranay wallahi rag Bangladesh oo af Bangladesh ku hadlaya iyo rag Russian Ruush anigu afkooga uma rabi laakiin kaba soo qaad marka waxbay sameynayaan form buu sameynayaa formka ayaan rabaa sida loo sameeyo afkiisa ama waan dhageysanaya ama waan iska xidhay waxaan raacayo kaliya ta sidan uu sameeyay steps kan uu sameeyay adiguna sidoo kale waad sameyn kartaa marmarka qaarkood muhiim ma aha inaad luqadiisa aad baratid laakiin wixii aqoon kaaga baahan cilmi ahaan marka xisaabta oo kale sida waxaan ku leeyahay xisaabiyaha oo kale ma jeedaa accountability accounting iyo sida waxaan ku leeyahay aqoon skill marketing oo kale xayeysiista waxyaabo caynkaas oo waad u baahan tahay in afkooga aad baratid af Ingiriisi af Soomaaliga uu ku yar yahay aniga lafteeda waxaan isku dayaa contentiga waxaan dhigaa waxa weeyaan si maxay conteniga ama contentiga af Soomaaligu inuu YouTube wax ka jiro weeyaan marka way yar tahay content Soomaali inaad ka heshid laakiin inta badan waxa weeyaan waa carabi inuu saas itasaw ma sii badnaa waa Ingiriisi iyo Faransiis adoo Ingiriisiga aad iyo aad ugu badan laakiin had iyo jeer qofkuna hatta luqadan Ingiriisiga barashadeedu waxay u baahan tahay inaad raadisid YouTube waxa ku jira af Ingiriisi yar oo si sahal aad u baran kartaa marka waqtigaaga investment ku samee waqtigaaga wax ka go oo wax ku baro maanta hadii aad cabasho hadii aad had ijir la taagan tahay af Ingiriisi ma garanay af Ingiriisi waliga af Ingiriisi ma baranaysid laakiin hadii aad bilowdid af Ingiriisiga 2 sano ku qaadatay waxay dadku ku qaadatay bilow kumalihi soco oo maxay meel tag oo si soo qor kumalihi hada asaas mid fiican tahay laakiin hadii YouTube aad ka raadinaysid ama internet aad ka raadinaysid way fiican tahay oo ayr u bilaabaysid kadib markaad ayr u bilowdana hadhow toole wax wanaagsan waad baran kartaa inta baan ku soo gabagayna wala aad baad maasantiin videogan hadad u aragtay inuu video wanaagsan yahay way fiicnaanayeen asxaabta la sii wadaagi lahayd khayrna waan ku rajeynayaa assalamu alaykum wa rahmatullah